in shanta bisha ay tahay maalinta loo dareerayo in aqlabiyad lagu ansixiyo oo dadkii afti laga qaado in la bedelo sharciga la isku doorto wadankan iyo in sidiisa loo daayo sharciga sidoo hadda yahay asxaabta waaweyn ee wadankan ayaa mar walba ku guuleysata taasi hadii loo fiiriyo dadka soo guuray oo anaga camal ah Soomaalida way noo fiican tahay asxaabta waaweyn waa isgaranaynaa waxay matalaan laakiin hadii la bedelo habka oo ay guuleystaan dadka haada raba ama yeesta raba waxay noqonaysaa in asxaabta kale ee yaryarka ah ay helaan fursad ay ku soo galaan baarlamaanka oo ay majaraha wadankan u qabtaan asxaabtaas yaryar kulligood ma wada xuma laakiin waxa u badan asxaabta xaq jirta oo doonaya in dadka ajnabiga wadankan laga raro taasina nooma fiicna hadaan nahay aqlabiyada waxaan doonayaa anoo editorial ayga tahay tani in dadka Soomaalida ama tafaftir ayga tahay tani inay dadka Soomaalida maalintaas toosaan ay kacaan ilaa 10ka bay furantay waxa codeyn kara dadka haysta jinsiyadda wadankan UK ama boqortooyada midowday ee Britain dadka Commonwealth ama barwaaqo sooranka ku jira ee deganaanshaha ku leh halkan oo ay kamid yihiin dadka Canada u dhashay oo halkan ku leh sharciga ama deganaanshaha oo ka qoran electoral vote-ka intaba dadkii codeyn lahaa waa loo soo diray waraaqihii Fadlan ha caajisin yaani dadka raba in la bedelo naga badanin anagoo badan aan tagno si aan sharciga aan u adeegsano oo aan u adeegsano codkeena oo aanay bari noqon dadkan asxaabta laga badan yahay Leicester waxa markii ugu horeysay la dooran doonaa duqa magaalada oo toos loo dooran doono habka hadda London loo doorto kale waxa u saftay ilaa iyo 11 qof oo 11 qof ay doonayaan inay noqdaan maayarkii ama duqii magaalo ee ugu horeeyay ee dadku toos soo doorto waxa xusid mudan in asxaab kala duwan ay u tartamayaan iyo dad iyagu iskood isku soo sharxay waxa aad in hoosta looga xariiqo mudan asxaabta xaq jirta qof kamid ah inuu u ordaayo maanta inuu maayar noqdo ma aha inay helayaan marka ugu horeysay laakiin waxay rabaan marka hore bal inay tusaan dadka inay wax noqon karaan waxa ugu عد هذا أصحاب تواوين دتك أي سوشر حين وحكمي ده ليبر كان نيكو سوشر حي أو أهانجري من برلمان كوجر أو لقى دورت ليستر وإسكعسري برلمان نبدي سيو أورتو كرسيجن نيكاس مجلس على بيتر سولسبي وحكوا حاجة نيكا كونسرفاتيف كأي سوشر حين أو ليراد روس جرانت أو ليدر كونسرفاتيف كأ وحكوا حاجة نيكا ليرادو جاري هانت أو ليبرال ديمقراطيك أي سوشر حين inta waxa wixliyo asxaabta oo intay soo sharxeen nin tujaar oo la yiraahdo Rick Moore oo asaga iskiisu soo sharxay inta kale to waa dad iyo ku isku soo sharxay oo aanan aad looga aqoonin siyaasadda wadanka magaalada Leicester taas waxay tahay in markii ugu horeysay dadka Leicester degan ay heli karaan qof ay toos soo doorteen taasna qof walba cidii uu isleeyahay wanaag bay ku keenaysaa Fadlan doorta oo idinku doorashadina waad u madax banaantiin inay leeyraado in markii ugu horeysay ay niman Soomaaliya ay ka sharaxan yihiin oo iyagoo u sharaxan xisbiga muxaafidka ah intaba waxa sharaxan 9 qof 9 qofba waa dad muslimiin maadaama xaafadaasi ay u badan tahay u badan yihiin dadka muslimiinta 9 kaba 3 bay u socdaan 3 walba waxay ka socdaa xisbi I want to be a strong voice for this constituency. 4,000 people in this constituency are out of work. I want to get more people in work. I want to fight for our young people losing their EMA. I want to fight for our young people facing £9,000 tuition fees. I want to fight for our pensioners getting their winter fuel payment cut. Our families seeing the VAT increase. And let me also reassure you, I now live in this constituency. Not in Harborough or Loughborough, but here in Leicester South. So you'll see me in this constituency.
That's not what it's about. It doesn't matter whether you're from Mansfield or Highfield. It matters about what you're going to do. So if you want a strong voice, someone who's going to fight Leicester South's corner, put your trust in me. Give me your support, and I promise I won't let you down. And I'd like you to vote Conservative, please. I want to deal with the stagnation that's happened in this city for years and years, and that's the Labour stagnation that's happened across the whole city. Leicester South needs somebody who's prepared to fight for this city, to fight for the people in Leicester South, and to work with them as hard as we can, bringing together partnerships and organisations from charitable organisations, religious organisations, government groups and everything to make the best of what we've got in this city. And what have we got in this city that's the best? People. The people of this city are fantastic. I've lived here since 1995. I live in Loughborough. Jonathan's absolutely correct. But I've lived and worked in this area. I've been in charge of regional development for the whole of the East Midlands, including Leicestershire, since 1995, for example, in something I've done work-wise. So what I really want to be able to do is to use and work with the people we've got in this city, the fantastic opportunities we have, the aspirations that we can have for the people of our city to help them grow in terms of education, in terms of growing businesses and helping new businesses set up. The investment that we can bring in this city is really extremely important, and it's not happening now, and it's not happened for years. I've been campaigning in Leicester for 10 years. All that I've done out of my own time. I'm passionate about changing this city. Why? Because I actually lived in this city for such a long time. Born in Buxton Street. I've not had a degree, never went to university. I'm sorry, but I haven't. But I'm so passionate about fighting for Leicester because it's the people that make Leicester. Brought up in these streets, lived in 3 constituencies, 3 different wards in this constituency. My father first came to Leicester in 1938. My grandfather first visited Leicester in 1919. Leicester is special. It's special to me, it's special to you, that's why we all live here. It's time to change. We've had too long of Labour actually failing us here. The health service, promises of hospitals, promises of improvement. There's now a different government in power. I will fight for people here to make sure we will get our fair share of funding. It's not happened under Labour, but I will make sure that we fight to make sure we get whatever we deserve in Leicester. We've got struggling with the hospitals, we're struggling with schools, we're struggling with crime. And that's not gone on now, that's been going on for 10 or 15 years. So it's time to fight for the people of Leicester South.